waxa la yidhahdaa akhlaaqiyaadku iyo dhaqanku iyo kobcinta naftu waxay u baahan yihiin istimraariya iyo mumaarasa. waxa la yidhahda waxay u baahan yihiin joogtayn. maanta marka lagu wacdiyo waad sacnaananaysaa. caawa marka gurigii tagta waxaad leedahay waxaad u baahan tahay inaad naftan geed ku xidho ilaahay ka baqatid. aroorta si waaga dambe markuu bariyo wixiiba midhba kama xasuusinid marka waaga dambe bariyo. walidaalika waa soomaalidu waxay idhaahdaan wacdi iyo weydba habeen baa lagu seexdaa bay idhahdeen, iyagoo uga jeedan waa markaa hore laguu sheegayo uni wax dambe oo kasii dambeeya ma jiraan. maxay naftu u baahan tahay markaasi? waxay u baahan tahay in hoggaanka loo hayo oo la kobciyo. waxay u baahan tahay in la barbaariyo. waxay u baahan tahay in la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo dhaqanka fiican, oo lagu ilaaliyo akhlaaqda wanaagsan, oo lagu ilaaliyo tawxiidka. waxay u baahan tahay naftu la daahir yeelo, laga daahir yeelo amraad alquluubi wanufuus, xanuunada ku dhaca nafta. in nafta laga ilaaliyo dulumaadkeeda iyo madmadowyadeeda. in nafta laga ilaaliyo waxyaabaha tanjiisiye nijaaseeya. in nafta laga ilaaliyo shahwaadka, kuwa xisiga iyo kuwa macnawigaaba. waxay u baahan tahay naftu in laga daahiro markaasi gaalnimo, shirki, riyaa, nifaaq. waxay u baahan tahay in laga daahir yeelo naftu magacdoon iyo maamustoon. naftu xubbulburuus, inaad muuqato bini aadamku iska jecel yahay, walow wacdina ku muuqo in waa hebel hebel lagu yidhaahdo aad soo baxdo, naftu waa iska jeceshahay. laakiin soo bixistu khayr ma leh. waxa khayr leh qofku inuu mutawaadic yahay oo ilaahay ku xidhan yahay baa khayr leh. idan nafta bini aadamka ahi shaytaanku hadduu kaa celin kari waayo khayrka, wuxuu isku dayayaa khayrka inuu ku derdersiiyo, adigoo khayrkii samaynaya haddana khayr bila ajara inuu kaa noqdo. adigoo camalkiiba samaynaya inuu camalkaaga ka dhigo mid ikhlaas beelay ama mid magac iyo maamuus aad ku raadinaysay oo aan ilaahay agtiisa waxba aanad kaga helaynin. ay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh aakhiro kuwa naarta loogu horshido maxaa ka mid ahaa? waxaa ka mid ahaa buu nebigu yidhi ku wax bixin badnaa. waxaa ka mid ahaa buu nebigu yidhi ku qur'aan akhris badnaa. waxaa ka mid ah buu nebigu yidhi maxay? ku jihaad dagaal badnaayo geesi ahayoo jihaad ku dhintay. saddexdaba naartaa lagu shidaa buu nebigu yidhi. sababta markii nebiga la weydiiyeyna wuxuu tilmaamayay ka koowaad ilaahay baa wuxuu idhaahdaa qur-aankii aan ku baray maxaad ku samaysay? ilaa habeen iyo maalinba waa anigii akhrinayay buu idhaahda. waxa alla uu ku yidhaahdaa waxaad salahayd alla yidhahda hebel waa nin qur-aan akhris bado, dayntiina waa ti dadka ku yidhaahdeen. magac xunbaad ku doonaysa iyo maamuus iyo hebel nin ka tajwiid fiican ama ka qur-aan fiican ama heblaayo say qur-aanka u qaybsan tahay, jaa'isad kasta iyadaa qaadata, intaa umaad ka rabtay. dayntiina lagu yidhi buu ayuu alla ku yidhahda subxaana wa tacaala aniga agtayda waxba kuma yaalin. kii adduunka badnaa baa la yidhahdaa maxaa? waxa uu yidhaahdaa ilaah waanigii bixiyey wixii aad nimcay siisay. waxaa lagu yidhahdaa waxaad u bixinaysay waxay ahayduun in la yidhahdo ninkaa hebel waa deeqsi, hebel gacantiisu waa nin faxla oo gacantiisu kala baxsan tahay. dayntiina lagu yidhi baa la yidhahda ilaah agtiisa waxba kuma lihid. kii kale jihaadka ku dhintay waxaa la yidhahdaa waxaad u diriraysay uun in la yidhahdo ninkaa hebel waa geesi, xaggu kaa xiga lagaaga soo dhici maayo. dayntiina lagu yidhi baa la yidhahdaa. idan xataa shaytaan hadduu kaa waayo inuu cibaadada kaa joojiyo, wuxuu isku dayayaa markaad samayseen inuu ku derdersiiyo, ku dhinac marsiiyo, oo wixii ammaanta ahaa ee ilaahay agtiisa wax lagaga helaya waxaan ahayn inuu waxaagii ka dhigo. idan waxaynu u baahanay nafta inaynu ilaalino. inaad naftu way sankay taagaysaa iyo madaxeed hoos u celiso, ilaahay mutawaadic, ilaahay aad u dhul dhigto. walaalada aanay ka san taagin aad hoos u celiso. magac iyo maamuustoona inay doonin aad u diiddo. naftu xuduudi nafs alanaaniya, anaadu way tiro badan tahaye inaad anaa oo dhan ka joojiso. wax allaale iyo waxa ay naftu rabto ee ay kugu qasbayso o dhan inaad u diidid. idan naftu waxa ay doonaysaa way tiro badantay, meesha ay ku socotaana waa mahlaka, waa dhul khatara. waxaa loo baahan yahay naftan hoggaanka loo xejiyo inaad xaasidnimada ka ilaaliso, oo bakhaylnimada ka ilaalisid, oo isla weynida ka ilaalisid, oo inay naftaadu ku cajab geliso aad ka ilaalisid, oo adduun jacaylka aad ka dhowrtid, oo hawo jacaylka aad ka dhowrtid. ilaahay wuxuu tilmaamayay qoladii jannada gelaysay maxaa la yidhi? faama man khaafa maqaama rabbi wanaha annafsa can ilhawa. maxaa ilaahay tilmaamay? faina aljannata hiya alma'wa. janna haddaad doonayso waxay ku xidhan tahay wanaha annafsa can ilhawa, waxay doontaba inaad diiddo. albusari gabaygiisii muxuu ku sheegayay? wakhaalif الnafsa wالshayطaana wacsihima. war naf iyo shayطaan weligaa caasi buu lahaa,
oo hadday isku kaadayaan buu yidhi wain humaa maxadaaka nusxa fatahimi xataa hadday shaydaan iyo naf isku kaadayaan inay kuu naseexeeyaan naseexadooda xataa ka shaki buu yidhi waxaa ku sugan meel khatarun bay kuu wadaane idan waxaa habboon in nafta aad ka xakamayso waxay doonto oo dhan waxay doonto o dhan inaanay kaa helin waxay doonto o dhan hadday kaa hesho jabtay nafta waxay u baahantahay in la rabeeyo lagu rabeeyo tawxiidka ilaahay iyo ilaahay subxaana wa tacaala asmaa illaahi alxusnaa inaad dhadhansato tawxiidka ku rubayntiisa maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah inaad rumaysato ilaahay inuu keli yahay waxaa ka mid ah inaad rumaysato ilaahay gacantiisa inay wax waliba ku jiraan haddaad rumaysato ilaahay gacantiisa inay wax waliba ku jiraan waxaad u baahataba isagumaad weydiinaysa haddaad rumaysato ilaahay gacantiisa inay wax waliba ku jiraan waxaad u baahataba isagumaad weydiinaysa